maalmihii ugu dambeeyey waxaa golaha wakiilada ee Somaliland hareeyay khilaaf sharci kaasi oo ka dhashay xeer number 14 xeerka furista ururada siyaasadda oo maalintii shalay ta ahayd xukuumadda Somaliland oo u hadlay afayeenka xukuumadda ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland uu sheegay in ay furan yihiin ururada siyaasadda Somaliland xeerkan oo madaxweynaha Somaliland dib ugu soo celiyay golaha wakiilada waxaanu jawiga guud ee golaha wakiiladu u ahaa mid ay ka dhasheen gacan ka hadal buuq iyo sawaxan waxaana xarunta golaha wakiilada Somaliland soo gaadhay ciidamo tiro badan ciidamadaasi uu hogaaminayay taliyaha booliska Somaliland Rayo Guuto Maxamed Aadan Saqadhi dabagale waxaana fadhigii saaka ee golaha wakiilada Somaliland aan gabi ahaanba ka qayb galin mudanayaashii u ololeynayay xeer number 14 kuwaasi oo maalintii shalay ta ahayd gudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan in shirgudooka aqalka golaha wakiilada Somaliland uu dhaqan geliyo xeer number 14 maanta waxa weeye waynu aragnaa golihii aynu dooranay annagoo ahayn xildhibaanadii la doortay ee shacabku doortay ee sharciga inay ilaaliyaan la doonayay ee nidaamka inay ilaaliyaan la doonayay ee dastuurkiina la ku doortay annaguna aanu xildhibaanada ku nahay madaxweynuhuna madaxweyne ku yahay speakerka golaha ku yahay speaker ku yahay contract social contract bulshada u dhaxeeyana waa dastuurka wixii ka hor imanayana waa qayb sharci waxaanu dhacdada aan u taaganahay tahay inaanu ilaalino xuquuqda shacabkiina doortay waxa weeye qodob dastuuriya baanu ilaalinaynaa qodobka 13aad ee dastuurka farqadiisa saddexaad oo tilmaamaysa in bulshadu isku habeyn karto urur siyaasadeed maanta waxaanu bulshada la wadaagaynaa xaq dastuuriyo ay lahaayeen qodob dastuuriyo ay lahaayeen inuu u soo noqday xeer number 14 waa xeer dhaqangala sida uu tilmaamayo qodobka 7aad farqadiisa 6aad waxa weeye xeeroosaadka golaha wakiilada qodobka 34aad farqadiisa 18aad ilaa qodobka 78aad ee dastuurka ayaa si cad u tilmaamaya xaaladdu golaha weligeed ma inaan arag intuu 30 sano aynu jirnay xaaladdan oo kala dhacda raayid wuxuu daaran yahay xeer number 14 xeer number 14 waa dhaqangal sida dastuurku uu dhigaayo iyo xeerarka ka farcamay iyo xeer hoosaadka golahuba xeer dhaqan galay markaa oo dhaqangal ah oo muddadii loo baahnaa aan ku soo noqon oo madaxweynaha uu saxeexay oo agtiisa ku dhaqan galay sida dastuurku dhigay 22 cisho gudahood hadduu madaxweynuhu ku saxeexi waayo ama uu ku saxeexo ama uu ku soo celin waayo sharcigaasi wuxuu leeyahay dastuurku sidaas ku dhaqan galay xeerka loo noqonayo waddankan u sareeyana waa dastuurku markuu sidaa cadaynayo haddii aan nahay xildhibaanada golaha wakiilada waxaan leenahay xeelkaasi waa dhaqalgan annagoo ka duulayna cadaaladda iyo wax wada lahaanshaha iyo Somaliland la wada leeyahay saddexdan xisbi lama wada lahayn ee qaylaya beelaha dariifyada haddaanu nahay waxaan rabnaa in ururada la furo on ururadayada la soo baxno beesha dhaxanayn waliba nagu taageerto muxuu ahaa warbaahinta ee ka hadlay xeer number 14 xeer number 14 48 xildhibaan oo ka mid ah golaha wakiilada ayaa u gudbiyay shirgudoonka mooshin sheegaya in xeerkaasi dhaqangal yahay 28 xildhibaan waxaana taageersan arinta aqlabiyadda golaha 45 mudane ayaa iminka taageersan arinta oo xildhibaanada joogana waa dhowr iyo 60 waxaa soo baxay dareen oranaya in shirgudoonka iyo la taliyayaasha sharcigu ay afduubaan golaha inuu ka hadlayno masiirkii dadka ah waxa weeye maanta xeer baa jira golaha yaalla aad la wada socotaan oo xeer 14 xeerkii doorashada ah in badan baa dawladda lagu coomin jiray markaanu macaaridka ahaan jirnay in madaxtooyadu ay furto baarlamaanka inay doorashada deegaanka furto mar walba culays baa lagu saaraa waxa laga dhigi jiray wixii xun xawaale laakiin maanta madaxweynuhu arrinka
uu isa soo dhaafiyey iyo geesta kale gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ayaa furay fadhigii saaka oo ay soo xaadireen mudanayaal gaadhaya ilaa 26 mudane waxaana warbixin fadhiga golaha ka hor akhriyay xogayaha guud ee golahaasi Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxaana xogayuhu sheegay in mooshinkii shalay ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Somaliland uu yahay sharci darro sida ay sheegeen buu yidhi la taliyayaasha sharciga ee golaha wakiilada Somaliland waxaanu xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle uu sheegay in xeer number 14 xeerka furista ururada siyaasadda Somaliland oo madaxweynaha Somaliland uu ku soo celiyay golaha isla markaasina uu ka dalbaday in mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Somaliland xeerkaasi ay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyaan uu sheegay in golaha wakiilada Somaliland uu gudagali doono ugu horreyn mudanayaashu xaq ayay u leeyihiin inay soo gudbiyaan mooshin sidoo kale annagoo tixraacina qodobka 43aad xarafkiisa dha oo ah qodobka ay cuskadeen soo jeedintoodu haddaba nuxurka farqadani waxay khusaysaa joojinta ka doodista qodobada ajandaha ku jira haddaba nuxurka farqadani waxay khusaysaa joojinta ka doodista qodob ajandaha ku jiray nuxur ahaan waxayna tilmaamaysaa in dooda la joojinayo ay ahayd mid hore u socotay ama su'aalo qorshaysan in la weydiiyo mas'uuliyiinta dawladeed oo golaha hor yimi si awgeed nuxurka farqadan ma jidaynayo in la joojiyo xeerka nuxurka soo jeedinta mudanayaashu wuxuu ka hor imanayaa qodobka 78 farqada saddexaad maadaama madaxweynuhu ku soo celiyay muddadii dastuurku jireeyay sida awgeed soo jeedinta mudanayaashu ma waafaqsana dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada mooshinkaasuna waa xukuma jiraan sida sharcigu sheegayo ay ku soo jeediyeen labada la taliye oo ah Cabdiraxmaan Hiirad Jaamac iyo Cabdirasaaq Maxamed Siciid geesta kale gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha asaaka ka soo qayb galin fadhiga golaha waxa uu ku baaqay in golaha ay yimaadaan isla markaasina ay ka soo qayb galaan kalfadhiyada golaha khilaafka soo kala dhex galayna ay wada hadal ku dhameyn doonaan